السلام عليكم. maanta waxaan joogaa Hebron ayaan joogaa aayaddii oraysa subxaana alladii asraa cabdihi min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa alladii baarakna xawlahu linuriya aayaatina innahu samiicu lbasiir. ahayd ilaahay ka soo kaxeeyey amba soo dawaafiyey nebiga maka ka keenay ee halkan keenay baytalmaqdis siduu u tuso ilaahay aayadihiisa. halkan waxa weyn waxaa ku aasan Hebron, waxaa ku aasan awliyaasha diinta islaamka. waa qabrigii waxaa meeshan iibsaday markii ugu horeysay Ibraahim baa iibsaday dhulkan oo wuxuu yiri islaantayda ha lagu aasay, islaantiisa lagu aasay. markii dambe Ibraahim baa lagu aasay, Ibraahim iyo islaantiisa ku aasan, Yacquub iyo islaantiisa ku aasan, Isxaaq iyo islaantiisa ku aasan. waxa weyn waa 4,000 sanadood iyo gidaarkan jira iyo masaajid weyn dhinaca kalena waa Yahuuda dhinacana waa muslimiinta. marka masjid Ibraahim baa la dhaahdaa, Hebron buu ku yaalaa. waxa weyn waa barakada ilaahay quraankiisa ku sheegay ee baytalmaqdis dhulka ku weegaarsan oo dhan waa barakaysan. halkaas maanta aan joogaa insha Allah. qabrigan tagi laba sunna tukani, duhur dalgana duhur baan tukan insha Allah billahi tawfiiq. salaam كوريا لوكستو لقد بركة كجرت. إبراهيم قبر جيسي، يعقوب قبر جيسي، إسحاق قبر جيسي، يدوم الردي وحلا هذا أو ياشي يمعو ياشي قبر جي أو ياشي قبر جي معو ياشي أي ياشي أو ياشي لده. السلام عليكم. جميل. جزاك الله. اوكي مقام ابراهيم marka waa la yacdiyay horta dhagaxdan ma arkaysin dhismahan waa dhismihii 4,000 oo sanadood balse iskugu simeeyeen balaga. haddana imika daa tiraadid qof guri buuri ma iga dhis amba dhulka Soomaalida waxay ku dhisayeen waa cajiib. halkan 4,000 oo sanadood yasan loo dhisay. sidaan niisoo sheegay meeshan waxaa iibiyey Ibraahim, نبي إبراهيم عليه السلام. ما يوحى لقي راح بقصين بلاش ما يلعق بوسيستي بقر كي بقصيستي إسلامتي سكو آستي قبر إسلامتي ساقو مركو دنتنا واللغو آسي نبي إبراهيم. إنا كيس يعقوب إنه مركد مركو وينادي مصر جوجي ساقو نوحير مركان وينادو حرورتيسو wuxuu yiri igu aas halkan aabahay agtiisa waa lagu garabaasay. Yacquub markaasi waa qaybtaasi qaybta Yahuuda. marka meeshan miskiid baahan jirtay markii hore qaybta Yahuuda Yacquub yaala. halkan waa Ibraahim dhinaca kale
dhabarkiisa waa islaantiisa kaa kale haddeeran tusayey waa isxaaq iyo islaantiisa dhinaca yuhuuddana marka halka laga galayna waxa weeyaan waa yacquub iyo islaantiisa marka hore maskiid buu ahaan jiray giddi laakiin dagaaladii ay carbaha lagaga guulaystay ayay yuhuuddu qabsatay marka yuhuuddu qabsatay macal maskiidun buu ahaan jiray yuhuuddina oo loo ogolaa inay soo ziyaartaan 8 sanaadkii buu de soo galay wuxuu dilay dad tukanaya meesha soo galayoo wuu laayay bacdeen baa la joojiyey oo la kala qaybiyey qaybtana yuhuudda laga dhigay qaybtana muslimiinta waa lii macneeyey dalool halkan waa daloolka waxaa 100 mitir baa hoos loo dhacayaa daloolkaasi 6 qabuur baa ku dhex jirta waa qabuurta ibraahim iyo islaantiisa yacquub iyo islaantiisa isxaaq iyo islaantiisa qabuurtu waxa weeyaan marka halkaasi la dhaadhaco ilaa 100 mitir cave bay ahaan jirtay kuwan lagu sheegay waa maqaamo ma aha qabuuro maqaam nacam waa ishaarun laakiin qabuurta 6 qabuurood halkan bay ku hoos jiraan marka la dhaadhaco insha allah bilaa saasaa leegu macneeyey
الاسبركعنيا مقامka halkaas ku yaala waxaan oo dhan waa laga kacay meel kasta waxa yaala ciidanka gidii oo dhan wada ciidan dadkoo dhan hubba wada sitaan waxa weeyaan yuhuudda meel kasta waxay dhigeen ciidan baa ilaalinaya magacdii macluumaadkiisii intii carabiga macal waa laga xidhay meeshan muslimiin baa lahaan jirtay waa lagu kala kiciyey maxaa la oran dee iyagoo carabin bay ku leeyihin waxaa kaaga dhiman soomaalidood ka oranoo haa kiristiyaan baatiin bay ga oranayaan inaan diinta uga soo horreeyay aabbayaasha uga soo horreeyay ma garanayaan waxay ka oranayaan carab haye carab waad halkan dhigtay de halkaasi ku yaala maqaamkii lixdii awowayaashii iyo ayeyaasha awowayaal iyo ayeyaalka diinta miskiid buu ahaan jiray iyaga haysan jiray hadda nus baa laga qaatay intii dhulkoo dhan oo laga haystaa waa la barakiciyey ka warkanay mar alle markaan meel kasta joogsayba maaha xalay ka timi Soomaaliya ma garana Soomaaliya war waa xabasha ha Soomaaliya war Soomaaliya keen Soomaaliya muslim baana may haddana isku doodeen magta may Christian baa war wax Christian Soomaaliya ma jirto wili la Soomaaliya ma taqaantaa may marka dadka qof ma maqnade Allahu a'lam